Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada caawa waxaan dhiganaa dialogue français en Somali partie numéro 2 qaybtii labaad ee waxaan dhiganaa wada sheekeysiga Faransiiga ahaa qaybta waxaan dhigan doonaa citation informelle waa qaabka la isku weydiiyo ama qaabka la isku barto qaybtii labaad baan dhiganaa se présenter comment se présenter waa sida la isku barto ama sida qof ay isku bari lahayd oo citation informelle ah citation informelle waxaa loo isticmaalaa qofku tiiba la isticmaalaa inta badan waxaa loo isticmaalaa in qof ay isgaranaysiin oo kale ama qof aad saaxiib tihiin oo kale ayaa loo isticmaalaa oo citation informelle qofka waa tiitwaynaysa sidaad ikhtiiba u isticmaalaysaa kolka markaad u isticmaalaysid citation informelle waan dhigan doonaa insha Allah casharka ku xiga kolka qaybtii ugu horeysay maxay ahayd qaybtii ugu horeysay waa no ama prénom waa magaca ama magaca no waa magac ama prénom waa maxay waa magaca hore kolka Faransiigu prénom waxay u isticmaalaan qofka magaciisa ugu horeysa ayaa magaciisa caadiga prénom yiraahdaan no-na waa qofka magaca abihi oo kale u isticmaalaan inta badan haddana inkastoo kale toonno hadii lagu dhahdo magaca isku mid kale toon prénomna waa magaca ka hore ayagu inkastoo magacooga ay magacooga loogu yeero inta badan magaca gaalka magaca labaad ba inta badan magaca abihi buu qaataa magaciisa inkastoo magaciisa ku hore halkaas daradeed ba kale toon prénom hadii lagu dhahdo kale toonno waa isku mid waa magaca waxa lagu weydiinayo kale toonno imika ama kale toonno waa lagu oran karaa waxa lagu oran karaa tu t'appelles comment ama magacaaba lagu oran karaa ama magacaaba lagu kale toonno waa magaca tu t'appelles comment waa magaca waa isku mid c'est quoi ton nom waa lagu oran karaa magacaagu ama maxay waa isku mid comment t'appelles-tu magaca ama maxaa lagu yeeraa ama magacaawe intaas oo dhan intaas oo fahmin afartaas su'aalood oo kale waa lagu weydiin karaa oo nacam waxay ka hadlayaan si magaca ton nom quel est ton nom tu t'appelles comment c'est quoi ton nom comment t'appelles-tu intaas oo dhan waa forme citation informelle baa la dhahdaa intaas oo dhan waxay sheegayaan qofka sidaad u weydiin lahayd magaciisa réponse ku jawaabadu waxay noqonayaan je m'appelle dhibic baan sidii je m'appelle magacaygu je m'appelle Ahmed je m'appelle Ali je m'appelle Omar je m'appelle Aisha je m'appelle magacaad sheegaysa ama waxaad oran kartaa tu t'appelles comment magacaydi moi anigu c'est Ali c'est Omar c'est Ousmane c'est Lula c'est Hamda c'est Saïda je me nomme oran kartaa ama je me nomme oran kartaa magacaygu je m'appelle Ali je m'appelle Ousmane je m'appelle Ahmed qaybtii magaca oo ku jirno markastiba citation informelle qaybta labaad waxaa lagu weydiin citation informelle c'est présenter waa nationalité-ga waa jinsiyada Soomaali waa ama wadanka u dhalashay ama wadankaad u dhalatay jinsiyada iyo dhinacaad ka soo jeedo wadankaad ka soo jeedid tu es de quelle nationalité waa maxay jinsiyadaada ama waa maxay wadannimadaada ama wadankaybaad tahay tu viens de quel pays wadankaybaad ka imaatay kama dhignin wadankaybaad ka imaatay ama wadankaybaad gasha tu viens de quel pays wadankaybaad gasha ama wadankaybaad ku noosha waa si waxa lagu weydiinaya hadal madahan oo kale laakiin waxay garan tahay wadankaagu waa kee kolka je suis français haddaad faransiis tahay je suis français haddaad faransiis tahayna je suis française haddaad Djiboutian tahayna je suis Djiboutien haddaad gabadha Djiboutian tahayna waxaa je suis Djiboutien haddaad tahay Soomaalina je suis Somali haddaad gabadh Soomaaliyeed tahayna waxaa je suis Somalienne qaybta saddexaad waa aashka ama da'da oo markaas waxaan ku jirnaa citation informelle waa tiidi markii la isticmaalayay quelle est ta date de naissance âge waa maxay waa da waa cumriga qofka quelle est ta date de naissance cumrigaagu waa maxay ama goormeed dhalatay quelle est ta date de naissance goormeed dhalatay tu as quel âge imse jir baa tahay tu es né le goormeed dhalatay maantiiba tu es né le waxa lagu leeyahay markii weeyaan tu es né waxaad dhalatay le ii sheeg danaa sidee la tankii aan tu es né le baaqsan dhibic baan sidii ay xaqlantahay tu es né le baaqsan la daska qaato tu es né le 28 juin 1995 intaasoo nooc waxaa lagu weydiinayaa nacmo da'daada
quelle est ta date de naissance, tu as quel âge, tu es né le waxaasoo dhan waa aashka qofku markaad weydiinayso oo citation informelle ah. Jawaabuhu waxay noqonayaan ma date de naissance waqtiga aan dhashay waa 1994, 1995, 1996, 1997, 2000 waa oran kartaa. Ça dépend waxay ku xiran tahay waqtiga ta date de naissance bay ku xiran tahay waqtiga aad dhalatay. Waxaan oran kartaa tu as quel âge? J'ai 20 ans, j'ai 18 ans, j'ai 5 ans, j'ai 3 ans. Ça dépend. Takrarna tu es né le je suis né le 25 mars 1911. Je suis né le 12 octobre 1996. Voilà. Ça va تقول جواب كارتا. دوا وسؤاله iyo جوابه. Quelle est ta date de naissance? Quelle est ta date de naissance? Tu as quel âge? Tu es né le saas oo kale marka la weydiinayo jawaabaha waa citation informelle ka halkan hoose lagu jawaabihi baa ku qoran. qaybta afraad waa profession waa shaqadii marka la weydiinayo quelle est ta profession waa maxay shaqadaadu, quel est ton métier waa maxay shaqadaadu, tu fais quoi dans la vie baa lagu oran waxay ka dhantahay maxaad qabataa baa ka dhantahay maxay shaqadaadu waa maxay ka dhantahay tu fais quoi comme travail waa maxay shaqadaadu ama shaqo maxaad qabataa, tu bosses où ama halkeed ka shaqaysaa. waxaasoo dhan waxaa lagu weydiinayaa shaqo waa shaqo lagu weydiinayo waa citation informelle ku jirnaa weli waa qaybta qayb lagu weydiin karo ma shaqaysaa weeyaan. Quelle est ta profession, quel est ton métier, tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi comme travail, tu bosses où waxaasoo dhan maad shaqaysaa weeyaan. réponse je suis waxay noqonayaan ha je suis écrivain waxaan qoraa baan ahay, je travaille à l'hôpital waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarka, je suis étudiant arday baan ahay ama je suis étudiante ama ardayd baan ahay. marka intaasoo dhan waxaa lagu weydiinayaa shaqo maxaad qabataa. su'aalaha soo socda su'aalaha aan soo aragnay quelle est ta profession, quel est ton métier, tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi comme travail, tu bosses où. intaasoo nooc waxaa lagu weydiinayaa waa shaqo. jawaabuhuna waxay ku xiran tahay waxaad ka shaqaysid haddaad tahay qoraa haddaad tahay iyo haddaad arday tahay iyo haddaad dhakhtar ka shaqaysid iyo haddaad iskoolba ka shaqaysid waxaad ku jawaabaysaa uun shaqadaadu waxay tahay. cashirka tashanaad ee dhiganayno waa adresse ama habitation. adresse waa ciwaanka, habitationna waa meesha aad gashid. se lagu weydiin karo tu habites où halkeed gashaa tu habites où halkeed gashaa. quelle est ton adresse adresskaaga ciwaankaaga ku yaala waa amalkee gashaa unbaa lagu leeyahay waa isku mid. jawaabuhuna waxay noqonayaan j'habite à Paris. Paris baan galaa hadda Paris ku noolahay hadda Faransa ku nooshahay. j'habite à Londres London baan galaa waa caasimadda Ingiriiska. mon adresse ama waxaad oran kartaa ciwaankaygu rue de Paris wuxuu ku yaalaa dariiqa Paris. dad ciwaan leedahay la garanayo weeyaan. kolkaa caawa intaa insha allah casharada baan dhiganaynay kelmadihii oo Soomaaliya kelmadihii maxay ahayd kelmadihii cusbaa ama aan ka faa'iideysanay dialogan caawa la shaqaysigan waa kuwan iyakuna c'est présenté adad kelmadda arkiinay ahayd waxay ka dhantahay Soomaali waa isbarasho. no waa maxay waa magac. pronom waa maxay waa magaca oo magacaaga ama waa magac pronom waa maxay waa magacaaga. aashna waa maxay waa da ama waa cimriga qofka. naissance waa dhalasho. date waa taariikh. quelle est ta date de naissance taariikhda dhalatay waa maxay. date waa maxay waa taariikhda maanta marka leedahay. la date d'aujourd'hui est waa le 8 janvier 1903 ayaad oran kartaa. waxaan waa kasoo munaasabeynaynaa. date waa maxay waa taariikh. profession waa maxay waa shaqo ama waxay noqotaa xirfad. profession noqotaa waa shaqo ama xirfad. métier waa maxay waa shaqo yadna. métier travail waa isku mid waa shaqo. profession ama saddexdaas intaasoo dhan waa isku macno. hôpital waa maxay waa dhakhtar. hôpital kelmadda hore ee hôpital hore qoray iyo kelmaddan waxaan hashta u dayr waxay leedahay accent shabuga taqriban baa la dhahdaa. inta kale waan ka iloobay kan baan xasuustay intaana waan sheegay. kelmadda kale ku xigta waa étudiant. étudiant ama étudiante waa accent entre parenthèses kan geliyay waa maxaa la dhahdaa kelmadda étudiant waa ninkii oo ardagay. gabadhiina waxaa la dhahdaa étudiante waa ardayad. nationalité waa maxay waa dhalasho waa jinsiyad. pays waa maxay waa wadan. tu viens dans quel pays
pays waa maxay waa wadan, nation waa lamidna waa qaran isku macnaheed soo arag kelmadaha saas kelmadaha video aan ka sameeyay ku jira kelmado macdan ay ku jiraan pays iyo nationality ku macnaheeda. adreesna waa ciwaan, adreesna maxay waa ciwaan. question waa maxay Soomaali waa su'aal. question tan question su'aal ma haysa wiishayna question ha su'aal waan haya. réponse na maxay waa jawaab, réponse na maxay waa jawaab. habiter ba xigta kelmada habiterna waa degan, utapita ki deganta markay ku nooshahay ku noolaasho ama waa deganaansho. insha Allah halkayba ku jirnaa caawa casharkeeni nadaan ku cusubtiina iloobina inaad subscribe ku saartiin insha Allah. sidaa inaka kale insha Allah ku xidhnaado insha Allah.